يا معاصدة يا فجورك يا ذنبك يا فسقك بدنايو بشان ما هي بش إله إلا عاسنا يا كجوكس قولا كجوكسو كقابسو وبشي خير كويانا سو قابل بشي عصيانك يا معاصدة لا إيمان يا ما هنا كقابسو أو كجوكسو وبشأ نبينا عليه الصلاة والسلام رمضان هديه يمادو الباب الجنة أيا إلهي جل وعلا يفرع الباب النارها نوال حراب النبي يري مردة الشياطين نوال حراب النبي عليه الصلاة والسلام وبال هذين كستو بشار رمضان كمده النبي شيء إنه إلهي لا يهي أضوماء نار تكحري في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك لله عتقاء من النار إلهي وحوليه أضوماء النار كحرية بشر رمضان الله إنك دقا كواس إنك الذين والدين تينا والدين تودي يا أولاد إنما نمان إلهي نار تكو كحرية إنك دقا وابل ونبينا الشيخ عليه الصلاة والسلام نك صوما وحوليه دعاء مستجابة الله أقبله oo inta cadeedu aynan dhicin oo marka afurkaan u diyaar garoobayno saacadaas qofka ducaysta ilaahay baahidiisa u sheegta ilaahay ducadiisa ma soo celiyo maalin nin acraabi reer baadiya ayaa majliskii nabigeena intuu iska dhex taagay buu yidhi yaa rasuulallah ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhayso ma ku naga fogo markaan baahideeda u sheeganayna maan u dhawaaqnaayo hadalka kor maan ugu qaadnaa mise waa mid noo dhow oo hoos baan ula hadallaa وآمس النبي عليه الصلاة والسلام لأن إلهي بايد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدي أضومها يقول أنك إكاوي ديان وحدو الشكتاب إلهي إن أنو أضومك أنو دوح أجيب دعوة الداعي إذا دعان كإبرية بريدي سبا إلهي لحلق وإبرية يا بريدي سواء أقبل يا لكن لبشر دبا إلهي كحد دعاء إلا أقبله فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون aniga hay ajiibaan baa ilaahay yidhi oo baaqayga ha yeelaan oo wixii wanaaga aan farayna ha la yimaadaan wixii diinteeda islaamku ay ka reebteen ha ka dheeraadaan oo yaan lagu arkin wixii taacad ee macruuf ee shariicadu ay farteen ha fartoomaan oo ha la yimaadaan wixii munkar ee shariicada islaamku ay naga reebteen ha ka reebtoomaan haddii labadaa shardi qofka ducaysanaya laga helo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan inoo qaadayaa inuu ilaahay ducadeena uu aqbalayo وقفك صومان بالنبي عليه الصلاة والسلام حلق أفرك ودويهي حلق دعادي سوى الله أقبل حدي وقفك دعايستو لذلك وبالخاصة بشني وقفك استوى مسلم الله دون يباهيدي سئين إلهي تبارك وتعالى وشهد وبال ونبي نوشيق عليه الصلاة والسلام تبنك الدنبنا إني كجرتو هبين ليلة القدر هبين ليلة با كجرتا وهبينك sanadka dhan ee soo socda wixii adduunyada ka dhici lahaa shar iyo khayr arsaaqad iyo maaragtaane iyo amni iyo barwaaqo wixii adduunyada bini aadanka u qadaray sanadka soo socda oo dhan wixii dhici lahaabaa ilaahay malaa'igta ayuu u sheegay uu tusiyaa habeenka laylatulqadriga buu nebigu yidhi khayrka ay leedahayna qofkii laga xarimay khayr dhammaantii waa laga xarimay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida nebigu mambarka isagoo fuulaya ayuu saddex jeer nebigu ku celiyuu yidhi aamiin 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 macnaheegu waa maxay ilaahu ducadaa naga aqbal bay ka dhigan tahay markaabay saxaabadu nebiga ku yidhaahdeen nebi allow erayadaa maanta aan kaa maqallay hore kaagama maqale maxaad ku keentay baa nebiga lagu yidhi markaabuu nebigu yidhi jibriil calayhi salaam ayaa ii soo banbaxay oo igu yidhi ninka labadiisii waalidoo noolnool nolol ku soo gaadhay ama midkood soo gaadhay ee u samafali waaya ee jannada ku geli waaya adeegu waalidadiisa u adeegaya ka faa'iideysan waaya jannada dariiqu u maraya u noqoni waayaan ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeye oo naarta allah ku fogeeye aamiin dhabuulo marka aamiin baan idhi buu yidhi bakhila bacuda man dukirta cindahu falam yusalli calayka waxaa kaloo ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey naartana lagu fogeeyey ninka agtiisa lagugu hadal qaaday ee kugu sullini waayana kaana ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeye aamiin dhabuulo aamiin baan idhi buu yidhi bacuda man adraka ramadaana walam yugfar lahu qofka bishaa ramadaani ay soo gaadhay ee bishaa ramadaan ka qaniimaysan waaye ka faa'iidaysan waayey ee bishaa kuwa loo dembi dhaafo ka mid noqoni waayeyna
kaana ilaahay naartaa ku fogeeye aamiin dhabuuhi aamiin baan idhi buu rasuulku yidhi ka habaartamayana waa jibriil calayhi assalaam ka ducada aamiin lana waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddii nebi maxamed agtaada lagugu hadal qaado waa inaad ku sallidaa laanna salliga nebigu calayhi salaatu wassalaam waa min acdami alqurubaati ila allahi caza wajal acmaasha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ugu fadli badan ee addoonku ilaahay ugu dhowaada ayay ka mid tahay man sallaa calaya salaatan waaxida salla allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar keliya igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weyddiiya isagana ilaahay 10 jeer buu u naxariistaa buu rasuulku yidhi waa xadiiska culammadu ay yidhaahdeen ma dikriga ilaahay la xusaya ayaa fadli badan mise salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu sallinaya ayaa fadli badan waxay yidhaahdeen culummada qaarkood sida qaadicayaad oo kale wuxuu yidhi sheekhaasi haddii ilaahay la xasuusto laba xadiis buu maaragtaana isku keenay uu isgarab dhigay deedna fadaa'ilka halkaa kala soo bax adiguba faa'iidadu meesha ay ku jirto man qaala subxaana allahi wabixamdihi gurisat lahu nakhlatun fi ljanna subxaana allahi wabixamdihi qofka mar yidhaahda buu nebigu yidhi geed timira ayaa jannada looga beeraa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii micraajka markuu nebi ibraahim samada 7 uu ku maray waa kii ku soo yidhi ummaddaada salaaniga gaadhsii waxaanad u sheegtaa jannadu waa dhul fiican oo dhulbeereed ku fiican dhirta jannada ku taalana waxaa lagu beeranayaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar subxaana allah markaad tidhahdaba geed baa jannada lagaaga beerayaa laa ilaaha ila allah markaad tidhahdaba geed baa jannada lagaaga beerayaa laakiin salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhegayso man sallaa calaya waaxidan salla allahu calayhi biha 10 buu nebigu yidhi hal mar ninka aniga igu salliya ilaahay naxariis ii weyddiiya ilaahay isagana 10 jeer buu u naxariistaa buu rasuulku yidhi idan geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeeroo ilaahay kuu naxariistay waxaa ka fadli badan 10ka jeer ilaahay kuu naxariistay lidaalika jibriil calayhi salaam wuxuu yidhi ninka agtaada lagugu hadal qaado ninka agtiisa lagugu hadal qaadee kugu sallini waaya maxaan ugu sallini weynay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka ee dariiqa xaqa aad ku garanaysid ee xaqa ilaahay kuu sheegaysa ee xaqa nebi maxamed kugu leeyahay kuu sheegaysa ee labadaada waalid xaqay kugu leeyihiin kuu sheegaysa jaarku xaqa uu leeyahay u sheegaysa walaashaa xaqay kugu leedahay diinta kuu sheegaysa xaaskaagu xaqay kugu leedahay diinta kuu sheegaysa agoommuhu xuquuqday kugu leeyihiin diinta kuu sheegaysa diintuu nebi maxamed kuula yimidee waa noloshaadii dhannayd weeyaan saad adduunyada dusheeda xaqa ilaahayna aad u gudan lahayd xuquuqda bini aadanka aad iskaga ilaalin lahayd ayaa nebi maxamed kuula yimid calayhi salaatu wassalaam naftaada dhan ee kugu jirta waxaa kaaga xaqle nebi maxamed naftiisa ayaa kaaga xaqle hal mar buu nebigu leeyahay ninka agtiisa aniga laygu soo hadal qaaday ee igu sallini waayaa jibriil baa yidhi ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeye aamiin dhe buuhi aamiin baan idhi buu yidhi ninka labadiisii waalid ayakoo noolnool soo gaadhay ee loogu dembi dhaaf waayo labadiisaa waalid labada waalid ciyaar maaha ilaahay baa le an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ilaahay baa kule anigana igu mahadnaq allihii ku abuurayna ku shugri oo caabud oo garo labadaadaa waalidee lagaa soo dhex saarayna xaqooga ilaali baa ilaahay ku leeyahay oo yakana ku shugri oo xataa waalidkaagu hadduunan muslim ahayn samafal buu kugu leeyahay inaad u samafasho hadduu muslim yahayna waaba ka sii xag jiraaba asmaa radia allaahu canha markii madiine loo hijrooday ayay nebiga u timiday sal alla alay wasalam ay ku tidhi nebi allow hooyaday baa ii timiday oo ii samafalaysee maan u samafalaa weli iyaduna may islaaminoo waa gaalad weeyaane markaa buu nebigu yidhi haa hooyadaa u samafaloo xidhiidhi buu rasuulku ka yidhi diinta islaamku inaad waalidkaaga u samafasho xataa haddaad isku diin ahayn ayay ku amraysaa hadday isku diin aad tihiinna hee ilaahay baa kule an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir anigana ii mahadnaq baa ilaahay ku leeyahay allihii ku abuuray ku jirsiiyey baan ahay labadaada waalidna waa labadii waalideen kaa soo dhex saaree ayakana u samafal baa ilaahay leeyahay wixii macruufa ku adeec waalidka wixii macruufee shareecadda islaamka ogoshahay baa lagu adeecayaa wixii shareecadda islaamka ka soo horjeeda labada waalid lagu adeeci maayo daacadda waalidku xadka forontiyarkaa bay leedahay forontiyarkaygu waa maxay wixii macruufa lagu adeeci wixii shareecadda islaamka ka hor imanaya lagu adeeci maayo
markaasaa ilaahay ku leeyahay xaggaygana waa loo soo noqon doonaa ogow labadaa waalid buu nebigu leeyahay ninka soo gaadhay iyakoo nool ama midkood soo gaadhay ee loogu dembi dhaafi waaye buu yidhi jibriil ilaahay naartaa ku fogeeye aamiin nebigu markaasaan ka yidhi buu yidhi aamiin bishaa ramadaan ninkay u soo gashay loo dembi dhaafi waayena isagana ilaahay naartaa ku fogeeye aamiin nebigu aamiin baan nidhi buu rasuulku marka bishan waa bil barakaysan khayrka bishani ay leedahayna qofka laga xarrimay buu nebigu yidhi waa maxruum qofkaasi khalaas waa qof maxruuma bishani khayrka ku jira qofka ilaahay ka ilaaliyey ee ilaahay ugu diiday khayr dhammaantii qofkaasi waa loo diiday buu rasuulku waa laga xarrimay khayrka lidaalika waa inaan bishaa ramadaan aan ilaahay u bandhigno nafteenna waa bishii addoonka la doonayo ilaahay nagu dhowaado هذه الباب الجنة الفري والباب النار لغا خدي وفي رواية النبي وحديث كلا وحو شيغ الباب الرحمة الفراب رسولكم أبواب الرحمة الفراب شاس وحاول دليل ودار كيسا ضد بدن ودلها كلين وحبحيان كؤت كيد أيا بشا وحاول دبيرانا سين صدقة بحيان مساكين تبا بشهر رمضان دعيني سودر كيسا إن بشري الباب الرحمة الله فريا أيتها وحا دليلا كوبي طبعا كابل وضد مساجد أنا سوق لين آيات بشهر رمضان كو أركسا يكون مساجد سوق له عمرايا قبل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به إلهي بلا صومك أنك إسكاله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو بن آدم أي سميان با إلهي ليه أياك أيا إسكاله الحسنة بعشرة أمثالها عمل كستو سميني سيد مركز خيرات سميسو طبعا با لغو قدر يا طبعا با لغو قدر إلى 700 ضعف با لغو لبلابيا لكن بشر رمضان حديث القدس قال إلهي وحيري صونك أنيقا إسكاله أنيقا نعطونك كأبال مرينا يا با إلهي صونك محاي إلهي وربي قول له أنا إسكاله إلهي بعد أنا إسكاله إسكا إلهي صونك إسكو نسبي عملك كلودنا بن آدم كو أياك إسكاله وصلاة عصر نيمك تكني واكيني بيقول نوش يجي لها من صلى البردين دخل الجنة بالنبي يقول صلاة لبدا قبونك تكني جنة قال يقول عصر كي صبح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة سبحان الله وبحمده نك مريد هذا النبي يقول جيت مرا جنة الله قبره من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نك طريق مربو النبي يقول يسقى علم الدين يدين صوبرت أو طريقة وجد أمري إلى هاي طريق الجنة أدبي رياب رسولك حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نك إلى هاي حج وافجي حج كيس لقى سوء أقبلي برسولك يدي أبال قد كلام الله النبي يقول إلا جنة إنه هلم ويان أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة لوقفوا أقون أبو النبي يقول إلما أقوم أنك سوق هذي كفالة قاد أبو النبي يقول هي كوريي أنا يسوي جنة صداسة رسولنا حب رسولكم من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة لا بيتبرك عدد السنة أنك مالين كيتو كذا إلى هيا قلب الجنة وقد صاب رسولك والله بدا الصبح كهر ريس هي أفر ظهر كهر ريس هي اللبا الظهر كدن بيس هي اللبا المغرب كدن بيس هي اللبا عشاء كدن بيس لا بيتبرك ركع عدد هدان مالين والبا لازم تد السنة إلى هيا قلب الجنة كأجد صاب أقل هذا إلى هاي الجنة وقد سينا وأقل عين كي يدم ملاين كون الدنيا ما يبقى ودن كان يبقى نك حلال مرت يا حلال عنك لبات السنة هدوشة قيسوح الله جاي بيبقى قل يرحير ليك الدشت مالين كستاب النبي محمد كوش يقول كل يا هي لبي تمن كارك على هداد مالين والبتو كتود إلى لسوا إلى هي قلب الجنة كأجدس عمر فاروق رضي الله عنه أيا يدي بالي الجنة كويا لا أوكليا وحولي شنب قولوا الباب ولي شنب قولوا الباب الباب كقفك مؤمنك وكوها جاجنا شنكون حور العين أيا كسوجيسا وقصر كلية بالي كلية
2 مليون iyo 500 kun oo xur al-ayn fadhiday Umar ibn Khattab قصر الجنة كويا وبالي قصر و شنبقلو الباب وليهي عمر ما يري الله رالك النقد فاروق الباب جنة الباب كستو أتكوها جاكتو قصر وليهينا نجمو مجا شنكونا حور العين إلهي ودياريي قصر كليا 2 مليون يشنبقلو كونا حور العين أيا قفك مومك اللو ودياريي عمر بن الخطاب انت أمركو يري أيو يري قبرك وحو النبي عليه الصلاة والسلام قصورته انت عليك نبي با اسكله نبي محمد وان كو هنيي بو يري هدنا قبرك صاحبك ابي بكر بو ايغي اني الله ايها الصديق صديق نيكي نبي محمد او هريي رميه صديق هايو اديغنا قصرك واد متيسته واد هشي وان كو هنيي وهني الله ايها الشهيد نيكي شهيد دينته ودمنيو اديغنا قصر عينكاس الهي كو دياريه وان كو هنيي وأن لك الشهادة يا عمر بويل مركا عمرو هذا أبو سيد شهادة أهل دونتها بويل مدينة المنورة جوتها هذا الكمال عمر يلي وحو كد عيستوك بالعبي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك إله أنا واحد يرد يغضا ودو أرزق ذا شهادة في سبيلك إن دينت هذا أردنتو إن قعن عدو كل انت إله يقول ضيق dhimashada waxaad igu deeqdaa gacan cadow gacan gaalina ku dhinto ilaahow dhimashadayda nin gaala gacantiisa soo dhex mari baladka xabiibkaagana anoo joogo ilaahow igu dilbu markaasaa lagu yidhi cumar bnu khadaab inantiisii xabsa almu'miniin radia allaahu canha ayaa ku tidhi yaa amiira almu'miniin ma magaaladii madiine oo dowladda islaamku meel walba ay gashay oo cadaaladii magaalada madiine ay ka muuqato oo qof tuuga magaalada madiina laga waayay iyo khaa'in iyo daalim iyo mujrim magaalada madiina wax dambi sameeyo dhan waa laga waayay dadka magaalada madiina ku nool waa asxaabu muhammad ma halkaaba umar oo leedahay ilaahu shahaada igu sii umar ibn khattab wuxuu yidhi haa ilaahay waa karam halkaas isagoo salaadii subax tujinaya rak'adii hore isagoo tukado rak'adii labaad u soo kacay ayaa midi la geliyay umar ibn khattab أبو لؤلؤة المجوسي مغيرة بن شعبة الضونك السبا انتو توريس وقاضيه كل علي عمر سأقول علي صلاة دي عمر كبر حواي لا وملك ودعي مركز الله قاضو قولي يسير لقي كوما أبو قال خلاص عاني هالكا لقى سيبا هالكا كصوبحي باختردني هناك وأنا سنة عصري أنا برقى مجري قلبك الله تابتا ولي جركي سيديكي سو شقين يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركاسا سكستا الله لها لعمر ولا كعين كروايي من صحابه كمدا هاي فضال الله ونجري بايد انا كعين يا عمر يدايب انا كعين يا عمر يدايب الصلاه يا امير المؤمنين الصلاه يا امير المؤمنين يا عمر مولن مؤمنين تا امير كوديو صلاه دي ما غاده كعوتكو هل مركلي عمر هذا كدوقا مركو صلاه دي مقلي أيو الله أنتو صدا أو كلا قاضي بوديس صلاة الصبح ما تكننو مرقاس لو الركعات باكو هذا الركعات إنك أنا كورنا صلاة المغرب مساجد أكبر لوتو كذا لكن صلاة الصبح سيلوتو كذا مقالة دينا أو هالكي بكو حد الصلاة كومو قال هذا وسوكعي ما تكن بالغي هذانا او كعلي markuu rak'adii dhameeyay buu ma dhameestiray hawa dhameestirta lagu yiri alhamdulillah alladhi a'anani 'alayha asasu ilaha igu caawiye salaada subaxina dhameestiran kuma hadiya buu innaha haqqun wala hadd fi al-islam man taraka as-salata buu war salaada nigula dardaarmaya buu as-salaa hooy ya ummata muhammad salaada ku dadaala oo xaq ilaahay nagu leeyahay xuquuqda ilaahay adoonka uu ku leeyahay amalka ugu horeeya la xisaabi waa salaada qofka ka tagay nabi umar ibn khattab diinta islaamka meel kuma la bawdha ogaado qofkaas umar kuma ayaa salaad lagu soo kiciyay
innakana waxaa la arkayaa qaar shaqadii markay gaadho heel aabba shaqadii baa gaadhee sare kac aabba jaadkii baa soo galo waan kuu soo qaaday dee sare kac taasaa ku kacnaa iminka dad badan taasay ku kacaan shahaada ilaahay cumar bnu khadaab uu ku siiyey madiinata almunawara shahaada lidaalika janna lagu helayaa salaadii qur-aankii waa noo sheegay janna in lagu helayo laakiin soonka markay noqotay fa innahu lii wa ana ajzii bihi ilaahay baa la soonka anaa iska leh anigaan addoonka ka abaalmarin doona maxaa soonka ilaahay u yidhi anigaa leh waa sir adiga ilaahay buu niga dhexeeyaa soonka inaad salaad tukanayso dadkao dhan baa u jeedoo ku arkaaya inaad xajido dadkao dhan baa u jeedoo ku arkaaya inaad sadaqad bixinayso waa lagu arkayaa inaad maaragtaane agoommo aad u kafaalo qaadda waa lagu ogaan karaa inaad miskiid dhistay waa lagu ogaanayaa inaad madrasad dhistay waa lagu og yahay inaad sooman tahayna ilaahay maan cid kale kuma og الصوم لي وأنا أجزي به صومك أنا إسكالة با إلهي يدي أنا قانا أدونك كابا المرين لذلك بشن سلف هذه الأمة تذكيون وناكسنا صحابة رسولك رضي الله عنهم يتابع التابعين بشهر رمضان محي سمين جري المركز وغنيمه وكفى إيدي سنين محي كفى إيدي سنين ما دام بشن أي تهي بشن قرآنك وصودقي إمام مالك رحمة الله عليه وحلق الشيقي وإمامك إمام دار الهجرة مساجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيوة أفرت سنة وكاها إمام بلد إمام مقالة المدينة إمام مالك عقاق مويانا كما كبدح قشنجرين باللقو يري مركاسا اللقو محاد مقالة المدينة مركا دحسعوت عقاق هذا وسعوتا مركا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بحلقا كو آصل أبو بكر عمر باكو آصل مدشو ذان كبالله الملك رابو كله إمام قاس مقالة المدينة قدر كيغا احترام كيغا قرنايي مساجد كنبي إننا أفرتن كسنة إمام كاها علم الحديث كان إساق الله دوننجري إمام شافعي رحمه الله يوح صوبري إمام شافعي إمام أحمد يوح صوبري وإمام الأئمة بين هذا العلماء إمام مالك وإمام الأئمة إمام قاسا أورنجري بشا الشعبان آخر كيغا مركي قادو أرضي ديس علمك وودقي بورنجري وفصحانتي وبشهر رمضان وبشهر القرآن كبو رجل بشهر وبشهر القرآن شهر القرآن ويا القرآن قاسم بك الفروجري قارقود طبعا كي عيسى مر بختميين ومعناها مالنت سدح جزء بآخرينيين قار تضوضي عيسى مر بختميين قار شنتين مالبو مر بختميين قار سدح ذي عيسى مر بختميين إمام الشافعي رحمه الله وحلق الشيقي يا إمام بخاري رحمة الله عليهم لبدو دوحا لغا شيغي إمام شافعي صلاة الفجر مركو قرآن كبلابو مغرب كان أو ختمايي مغرب كان مركو بلابنا فجر كو ختم جري يعني بالشهر رمضان لحظا قرب قرآن كختمايي إمام شافعي الله نحرسته علماء دي إسلام الدين تن أسود داشي علم قاء هاي سنة إياكم أنت إنو إليه إنو قتقي إلى قيامهنا لليه الله أن حرست لليه حتى بشهر رمضان القرآن كمالنتنا مر ختميين حبين كينا أي ختميين وحي أركيان يوصي قادين إنكم من أركوين مات أوارون اسكو أركت مني يك آخرة أو موقتي ذات كمان تأدوك جوجنا أدوية أو موقتي موسم كان يقلين بيقرني قيمه سا إنك تضبطنا مسلمين ما تبشر رمضان قيمه كما يقانا حتى قاروا حالها لا يا ودن كينس صلاة فجر بركو صلاة هدو تكدو الصبح لا تكدو إنه مقصدك وردد إنتو قالوا حاسك سو كوي هذا أفرك بركو إيرك هدو نكعي هديت ولا دي عيالك وقيل ذا إلى ليا صلاة ظهر جمع لما تكن صلاة عصر جمع لما تكن قرآن ما آخر السنة عكس وانت مركع لساني ولا الوابش القرآن أبشي جبريل عليه السلام النبي أن كسو بدنا بشهر رمضان لأن النبي محمد جبريل القرآن كيدرسين جري والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضبيل الدري وأمد الله دري إني سوها لاكتو وأمر إلهي كسعتا
siday dabaysha u degdegto waa uga degdeg badnaa nabigeennu khayrka bisha Ramadaan hadday sadaqad ay tahay hadday qur'aan ay tahay hadday salaad ay tahay hadday dikri ay tahay hadday cibaado ay tahay bishan waa bishii ilaahay loo dhawaanayo laba nin ayaa la sheegay ninna shahiid buu noqdo diintu u dhintay ninna mawd caadi uu iska dhintay oo walaalkii buu sanad ka dambeeyay markii waxaa manaam lagu arkay kii mawdka caadiga iska dhintay ee sanad ka dambeeyay oo kii shahiidkii ee sanad ka horeeyay ka darajo sareeyay jannadii markaaba saxaabadu nabiga u sheegeen yiraahdeen manaamka aan aragnay bal ka waran markaabuu nabigu isaga dabadii muuna sanad noolaan ha uu noolaa sanadka uu noolaa bishii Ramadaan mayna ku jirin haa habeen leelatul qadar mayna ku jirin haa sanadka uu noolaa cibaadada uu la yimiday iyo bisha Ramadaan uu fursada u helay iyo leelatul qadarkii bisha uu ka faa'iideystay ayuu shahiidka ku dhaafay rasuulku موسم الحسنات إما تجارته ganacsatada موسمka waxa yaqaanaan tijaarada dadka xoolaha dhaqan xoolaha xilliga la iibinayo way yaqaanaan dadka beeraha la beeralayda beertu xilliga soo go'aysa way yaqaanaan dadka beeraha xilliga la shiinayay way yaqaanaan oo roobku markuu soo dhawaaday shiinayaan tijaartu marka alaabaha la iibsanayo way yaqaanaan oo wadankeena labada ciidood iyo maartaan iskuulada marka la galaayo saddexda jeer baa suuqyadu aad u shaqeeyaan kuwa dharka iibiyay sufraan muslim ya muumin adigu maxaad u garweyda marka mawsimka khayrka ilaahay uu ku siiyay mawsim alkhayraat bishaar Ramadaan waa mawsim alkhayr maalinta jumcaduna maadaama ay tahay ciid al-usbuuci waa jumca maanta waxa ku jirno maalmaha toddobada cisho uu nabigu yiri maalinta jumcada ugu fadli badan bisha Ramadaanna bilaha ayada ugu fadli badan habeenadana habeenka leelatul qadarka ugu fadli badan maalin hadii la eegana yawm arafa ugu fadli badan salaada dhuhur ka hor ayaa nabi maxamed oo 4 ragcad tukanaya la arkay markaa saxaabadu ku yiraahdeen nabi allah saacadan salaada tukanaysa noo sheeg waa saacad albaabada samada adduunyadu ay leedahay baa la furaa maadaama albaab la furayo samadu ay leedahay saacadan عمل وناكسن إنه يغفل عن جعلها برسول سنينتي يا خميستي صون كانت صوم يسن نوشك بالويري معناها كجرا نوشك صحابته ويديني النبي صلى الله عليه وسلم مركب النبي بكيد والله ودا مع الموضع عمل كأن قبل إلهي اللوجي مركب أنا صوم من جعلها عمل كأن إلهي اللورجي برسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي معصومة oo dambina uusan ka dhicin ba noloshii intuu yaraana dambe kama dhicin ba la yiri markuu weynaadana ilaahay dunuubta uma yeelin ba waa maxaa yeelay laana nabi buu ahaa macsuuma wala ilaalinayay sidadku isaga ugu dabadayda ba nabiga loo ilaalinayay markaas ilaahay liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ilaahay ba azza wa jalla nabigiisa u marxaatay oo yiri dambigaagii hore iyo dambigaagii dambe adiga waan ka dhaafnay ba nabiga lagu yiri dambi ma balahayn hadana Aisha radiyallahu anha waxay tiri fi ghayri Ramadan iyadoo aynan ahaynba ayuu nabigu habeenka salaada leelka u kici jiray tiri Aisha طول القيام سرجوga uu nabigu ku dheeraaday awgeed ayaa lagu hintay nabiga bararaan ayaa garoori jireen waay rak'ad kaliya nabiga laga wariyay inuu ku tukanayo suuratul baqara iyo aala imraan iyo suuratul nisaa waa 5 juz'iya bad markaasaan ku yiri nabi allah adiga ilaahay dambigaagii horena uu ka ilaaliyay oo uu ka dhaafay dambigii dambana waa laga ilaaliyay waa maxay maxasan nafta ugu cadaabaysa Aisha markaa uu nabigu ugu jawaabo wuxuu ku yiri afala uhibbu an akuna 'abdan shakura afala uhibbu miyana ja'alayn in ana hada aniguna adoon shaakir Abdullah ibn Mas'ud baa yiri habeen baa nabiga arko salaad leel tukanaya dadna waan ku daba xidhay buu salaadii markaasaan ku hamiyay buu inaan wax xun aan sameeyo markaasaa la yiri Abdullah ibn Mas'ud adoo nabi Muhammad gadaashiisa ku tukanaya waxa xuneed inaad sameysay aad ku hamiday muxuu ahaa bal noo sheeg wuxuu salaada inaan ka goosto iska fadhiistaan ku hamiyay intaasoo camal xun u arkaa saxaabigaas limaada laana nabiga salaada uu dheeraysan jiray salaadii markuu ka baxay buu nabigu arkay saxaabada ku daba tukanaysa wuxuu yiri
aniga hayla tukan inay iskiin iskaga tukada buu nabigu yiri way ugu dabadaalaysaa nabi kasta waxba ilaahay jecelaysiiyay buu yiri aniga ilaahay wuxuu ii jecelaysiiyay salaatul layl salaata taraawixda laba habeen buu tujiyay saxaabadiisa uska dhaafay habeenka saddexaad muxuu u dhaafay in ummadda lagu farad yeelo ummaddu ay kari weydo buu nabigu ka baqay waa sunne farad haddii laga dhigi lahaa ka warrama sayidina cumar bnu khadaab baa markaa zamankiisii jamciyey oo yidhi nicma albidcatu haadihi nebi maxamed dabadii bidca la sameeyey tanaa ugu khayr badanee tukada buu yidhi war hebelow adiguna halkaa jamca ku tuji war adiguna halkaa jamca ku tuji magaalada madiinu dhowr musalla intuu magacaabay buu yidhi halkaa ku tujiye jamca وإلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما هبين مرقود لا تكذا صحابتي سو كداف محو دايي إن أمد الله فرض يلو نبي كبقى يحد أمد أي كري ودو دبي عن كقاب هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلى هاي الدنبي يسيه ريكيد دم وكإلى لي صدا إلهي وعبد أيي إنك أنا مركب حالي نقرب ولا لا سوينا كفائدة سنما بشهر رمضان هذا بشهر رمضان maalinkaygana soom waxaa laga soomayaa xalaal keliya ma laga soomayo bisha ramadaan maalinkayga xalaasha laga soomaa laakiin qofka muslimku noloshiisa oo dhan xaaraanta uu ka sooman yahay ugu wixii ilaahay kaa xarimay noloshoo dhan baa la rabaa inaad ka soomanaato laakiin bisha ramadaan maalinkayga waxaa laga soomayaa ceeshkii xalaasha ahaa maalinka ka soomay biyihii xalaasha ahaana maalintii waad ka soomay ooridaadii xalaasha ahaydna maalintii waad ka soomay haddaad bisha ramadaan markaa aad is ilaalisid oo carabkaaga ilaalisid oo dhegtaada ilaalisid oo calooshaada xaaraan ka ilaalisid oo hadalkaaga laqwiga ka ilaalisid oo dishaada macsiyadda ka ilaalisid oo wakhtigaaga diyaacaad ka ilaalisid waxa soonka laga dhexlaa markaa waa alla ka baq yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun haddii bisha ramadaan qofku uu si fiican u gudto uu beenta iska ilaaliyo uu laqwiga iska ilaaliyo man lam yadac qawla الzuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu ninka aanan ka tegin buu nebigu leeyahay markhaati beenaa laha iyo laqwiga iyo xanta iyo beenta ninka aanan ka tegin iyo camalka xun ninka aanan ka dheeraan buu nebigu yidhi ilaahay dan kama le buu nebigu yidhi inuu gaajiya harraad isku dilo qofkaas saad calooshaadii aad uga celisay baadiye biyo ishaada waa inay soontaa oo maxay ka soomi annadaru ila almaxaarim bay ka soomi dhegtaada waa inay ka soontaa laqwiga carabkaagu maalayacniga waa inuu ka soomaa wakhtigaagu maalayacniga waa inuu ka soomaa hadalka maalayacniga waa inaad ka soontaa bisha ramadaan hadduu qofku noloshiisa si fiican cibaadada ilaahay habeen iyo maalin hadduu ku ilaaliya bay culimmadu leeyihiin soonka waxaa laga dhexlaa markaa waa alla ka cabsi taqwadu waa maxay taqwadu waa freem qofka bini aadamka baabuurka freemkaa qabta baabuurka hadduu bilaa bariig noqdo ka warran macaasida qofka waxa ka qabta waa taqwada zinada waxa kaa qabanaysa waa taqwada ribada waxa kaa qabanaysa waa taqwada xanta waxa kuu diidaysa waa taqwada dulmiga waxa kuu diidaysa waa taqwada xaaraan inaad cunto waxa kaa ilaalinaysa waa taqwada rashwada waxa kaa ilaalinaysa waa taqwada dulmiga waxa kaa reebaysa waa taqwada taqwadu waa maxay waa alla ka cabsi waa inuu qofku yidhaahdo ilaahay bay arkayo ilaahay bay maqlayo xaggin ilaahay ka galay hadduu qofku taqwada uu ka faa'iidaysta ramadaanka taqwadu waxay noqonaysaa mataqaana waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa umuurihiisoo dhan baan ka dhigaynaa baa ilaahay yidhi fuday nolosha adduunyada kugu adkaani mayso haddaad ilaahay ka cabsato waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka baqa cidhiidhi kastoo la soo darsa baa ilaahay yidhi meeluu ka baxaan u samaynaa wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib arsaaqadana meeluu ka filayn baan ka siinaa buu ilaahay yidhi mubaarak nin cajiibaa la odhan jiray mubaarak nin buu addoon u ahaa beer buu uga shaqayn jiray
ninkii beerta iska lahaya sayidkii baa beertii yimiday mubaaragow bal geedaha midha iga soo go'aan cuno maanta uu u soo gooyey uu hordhigay markaasuu ku yidhi waa qadhaadh bal xaggaa kale u weeco beerta dhinaca kale teg markaa buu ka soo qaaday wuxuu yidhi waa qadhaadh mubaarak kaale buu ka yidhi imse sanaad beerta ka shaqaysaa waa iska ogta geedka midhaha qadhaadhle iyo ka midhaha macaan lama kala taqaanin miyaa wuxuu yaa sayidi ani beerta ka shaqee baad iga tidhee midha ka cunigamaad odhan buu ka yidhi beerta 20 sano uu ka shaqaynayey mubaarak midha kama cunin maxaa ka ilaalinaya maaha beerta kamera lagu xidhay maaha isaga kamera baa ku xidhan la yidhaa alla ka cabsi ilaahay baa arkaya ilaahay baa maqlaaya waa sifada maanta aan laanahay weeyaan haddaa sifada muslimiintu taqwada heli lahaayeen cidna dhibaato adduunyada dusheeda kuma bahasheenba dhib baynuguma dhacdeenba baahidaadoo dhan ilaahay baa ku daboolayaba uu yaabay ninkii oo waxba kama cunin seen uga cuni buu ka shaqee baad igu tidhi aniga midha ka cunigama odhan buu ka yidhi uu yaabay ninkii reerkiisii buu u sheegay mubaarakan beerteenna uga shaqeeya addoonkeenna qisadaa baan maanta kala kulmay waa ninkii baatroogii baa ka warramaya xaajiyadiisa uga warramaya haddeetoola way jeclaadeen ninkii way soo dhowaysteen way la tashadaan talay weyddiiyaan maalin maalmaha ka mida ninkii baatroogii oo yar buuqsan baa beerta soo galay si ugu nasto mubaarak baa markaa waxba u keeno wuxuu yidhi maanta waad yar buuqsantae maxaa kugu dhaco wuxuu yidhi arrin anigiyo reerkayga dhex oo arrin faamiliyere shaqadaada iska wad adigu markaasuu yidhi mu'miniintu way tashadaan oo ilaahay baa yidhi wa amruhum shuuraa baynahum dadka mu'miniintu dhexdooday tashadaane biloo reerkaagana anigu tala kaa sii biloo tala fiican ba ilaahay kaa soo dhex mari wallaahi waad fiican tahay waa runtaa ii soo fadhiisay buu yidhi inantaydii aan dhalay ayaa gaadhay da'dii gabdhaha lagu guurinaayey marka ciddaan u guurin lahaa baan ka fikirayaa buu yidhi waa aabbo inantiisii baa qaan gaadhay cidduu u guurin lahaa buu ka fikirayaa iyadu ma soo haasaawaysa isagaa u soo haasaawaya dhaqanka islaamku waa sidaas huu yaabay ninkii waa iska dhib yar tahay buuli waxay culammadeennu inoo sheegeen oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam laga maqlay inuu yidhi idaa aataakum miman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu inii yimaada nin aad diintiisa iyo dabeecaddiisa aad ka raalli tihiin u guuriya haddaad u guurin weydaanna buu nebigu yidhi arlada fasaad weyn iyo fidnad baa ka dhici doonta igaad inantaada u guurinaysid labadaa ka eg diin ma leeyahay dabeecad fiicanna ma leeyahay diin ma leeyahayoo salaadda ma tukadaa masaajiid iyo culammada ma ku xidhan yahay dhaqan wanaagsan ma leeyahayoo waxaad eegtaa qofkan kuwalitigiisa eega inantaada u dhiibaysid laanna inantaada tacab baa kaa galay adiga 20 sannaad tarbiyadaynaysood wax baraysay ood aqalka ku haysood diin ku barbaarinaysay iyo dhaqanka wanaagsan marka cidlaha ku tuuri lidaalika nebigu sal alla alay wasalam meesha gabadha la dhigay nebi maxamed baa kuu sheegay oo leh hadduu inii yimaado ninaad diintiisa iyo dabeecaddiisa aad ka raalli tihiin u guuriya buu nebigu yidhi haddaad u guurin weydaanna arlada fasaadee fidnad weyn baa ka dhici doonta buu rasuulku xadiiskii buu u sheegay madaxuu jebiyey xadiiskii fikrad fiican weeyaan buu yidhi xaaskiisiibuu habeenkii u sheegay waxay tidhi ninka mubaarak ka diin fiican ee ka dabeecad fiicaneed kalee doondooni waa ninkee bay ku tidhi beerta 20 sano uu ka shaqaynayay ninka midha aanan ka cunin gabadhaa isaga ku dar beertana isaga sii aqalkaana soo deji ninka nin la sii daynaya maahan waa nin barakaysane waman yataqi allaaha yajcal lahu makhrajan makhrajka waa kaa soo maa addoon buu ahaa waa la xoreeyey faqiir buu ahaa hani baa laga dhigoo beertii baa lagu wareejiyey
عزابوها بلا ريرو قبردي باتروغو داليبا لو ديسي قبر هذا قردياغا مو ديسي هذا اخلاق في عكارك وادك تايزوما قرديا في عنو حافظ القران حافظ الباب كوجو وصلاه اديك كوكعيه وهبينك مركات كعدنا صلاه تلت وكنايه مسينس نفسداد وينت هذا يا ريج بوتي بعض بعيد برباريسينا ترى الاب نيكنا الدين يا طبيعات في عن لغوسو reerka dhan baa isku dhicay uu waashaa loo dhaqooday waa la xidhiba dhaqan wanaagsan buu nabigu iyo diin weega qofka dinantiina siinaysan mubaarak isagu alla ka cabsigiisii buu ka faa'iideystay ninkan batrooguna ninkan diintiisii buu gabadhiisa uga faa'iideeyay inantuna barigaas inantuna inan caqligayga ku socota ma ahayn talada aabaheedii hooyadeed ku soconaysa inaga zamankeena ma sha Allah Allah ina soo hadeeyay bas aad baan u fogaanay aad ina dariiqa ku soo dhacna saxda waxaan u maleynaa 100 sano haddaan oyno oo dacwad iyo diinta ka shaqeyno baan gaari doonaa mar islaam hadduu ilaahayna aqbalo weyn wali bana aad baan u fogaanay ilaahay waxba kuma ah inuu 2 sano gudaheed ummadda dhanba uu dariiqii nabiga ku soo celiyo waxba kuma ilaahay insha Allah dhaada إن شاء الله ده إلهي وقادر وسوعلي ونلوش إسلام قبل ده سنين كي يكون عرتي بنيسه ولا تاريخ نيسا وعبد الله بن مبارك بيكون عرتي إن عالمة أو ربانية أو غني ومال قبينة أو دين عنا كالزاهد وأدوية كالزاهدين أو سنة حجية سنة جهاد كأبحة وإلى يوم القيامة علم جيسية أقواشيسي هي تاريخ دي سي ماشي كل شيء ماشي كل انت قرنتهي اي غبدي مبارك غورسدي بركيسنيد اي كعرت يدنا لبا والده وناكسن الهي وحو كسو دحساري المو وناكسن عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه مركو حجنا يوم دتك وي راعي جرين بلدي سنه إن يرمى تاريخ دي سكتابا وليبا ما هي من عربي عجبي بوها مركز اللغوصة ورجري أقل كيس كنتم قف لحدن قف بقل قف لبا بقل شقاله سوكو أورنجري وانين مالقبين وهنتيلو ومالقبين وعالم وانين مجاهدة وانين زاهد وأدوية هذا نايكموكا shaqaalihiisu ku oran jiray nin walba kiishu dhiiba dadka ila xajinaya aniga lacagta xashka ugu tala galeen safarka ugu tala galeen halka ku riday buu oran jiray magaciisa ugu qoro ka soo ururiya laga soo ururiyo halka igu xareeya sanduuqa igu xareeya ayna marsha ila xashka muddada ay ka soo socdaan magaalada uu ku dhashay marwa ila ay imanayaan madiinada al-munawwara ay soo galayaan intaas wuxuu baraya cilmigu baraya أحكامته بريا زهد بو بريا دغنك وناكسن بو بريا طبيعته وناكسن بو بريا يكون ويكفى إيدي سنة نيكا ونع عالم الرباني ولاهي كو حرانه بركي مدينة مادا النبي قال مساجد كيس كنتو كذا النبي قال أبو بكر يا أصحابه دي زيارتا أي هذا مكة مجرين هذا مكة مركي أعماش حشك أي قتان أي ودتك الله الصوع هذا إسقوا أورنجري وتقول عكسي أورنجري هاي عيال كين أردو هديد وسوقادي هديد مركاسي هديد ولقادي جرين مركي دل كوغي يكون نبضا يكون نقدان أيو هذا أورنجري مر اللي مركي أقلدو دي كوة نقدان بو أورنجري خادمين تيسي نوال بلعقتي كيش كيسي أدوكو قرتين مركيسي إيسو سارا هلقا صدق والله سو ساري جري نوال بأقل كيسي أردو كدب جيوك جيبدو ورد ورجري العقتيسي سنة حجنا يي سنة الجهاد كبحي دينة الإسلام كل ذلك كقيب قليل دفاعي إن دين لقى شغيو أو دين دقالها اللي بحيو أو دين وقتك اللي بحيو أو دين ديك اللي بحيو ياك قرشوك يكون جرتي إنك أنا كتاب كلمة كم جرت مات دين بعدين هذا القاضي إنك هو حنا قد أحسن وأنتو كذا وأن صوما حشكي عمرنا إلهي ونقيه محاي كما قدم dadaalkii diinta ka maqan sida dadku ku hagaagi lahaayeen in laga shaqeeyo loo baahan yahay
dadka maanta ma dadka khayrka wada badan mise dadka sharka wada baliga jawaab dadka badan waxay u bateen dadka sharka wada khayrka wax ka shaqeeyana jirin maanta sharka waa laga shaqeynayaa gaala ka shaqeynaysa oo munaafiqiin baa ka shaqeynaysa oo mujrimiin iyo fasaqa ka shaqeynaysa oo fasaadka maanta waa la fidinayaa dhaqaala lagu fidinayaa xaqaaga inaad ka shaqeyso maxaa ku diiday inaad diintaada ka shaqeyso oo reerkaaga quraan barto oo qaraabadaada diinta iyo dacwada ku soo xidha maxaa ku diiday waayo diinta in laga shaqeeyo naguma unkanaba innaka maskaxdeena kuma jirto diinta dadaalkeega ummaddan xil baa ka saaran baabil rabadaan hadda waxaan ku jirnaa innagu laakiin ma og tahay dagaalkii badar uu nebi maxamed uu qaaday rabadaan buu ahay maka maalintuu nebigu furtay bil rabadaan buu la eegtay rabadaan waa in la fadhiyo la cibaadaysto may uu baxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta dadaalkeegu u baxay rasuulku sal alla alay wasalam inna way soomanaayeen inna way iska afureen kuwii afuray buu ayaa khidmeeyey oo dharigii kariyey oo biyihii u dhaamiyey oo xoolihii dharka ka dhigay markaa buu nebigu uhi kuwii afuranaa ee rugsadda qaatay ayaa ajarkii oo dhanba qaatay buu rasuulku oo maxay ajarka ku qaateen dadaalka diintay ajarka ku qaateen iyo maaragtana khidmadayna la socdaan walaalayaal bishan waa bil barakaysan ha ka faa'iidaysanno oo diinta dadaalkeega ha ka qayb qaadanno oo dacwaddu waa xil ina wada saar inaan diinta ka shaqeyno maaha diinta dadaalkeega culummada keliya iyo wasaaradda keliya ka mas-uul maaha muslim kastoo ashahaadanaya diintaada inaad wax ku tarta laga rabo adiga haddaad dhaqaalo bixinaysid haddaad caqligaaga bixinaysid haddaad wakhtigaaga bixinaysid diintu maasha inay korna noqoto maanta waan rabnaa oo mujtamaceennu diinta u dadaalaan oo dadkeennu isbeddel uu ku yimaado waan wada rabnaa laakiin inaan ka shaqayna ma rabno example waxaan la mid nahay innaku nin yidhi nin baa wax adduunye ah wan keliyu lahaa wan keliya hilibna ninkaas uu hamuumay markaa buu yidhi dadkii buu dhex yimid isagoo wankii sii wata wankaa keliyu adduunye haystaa wax kalena ma haysta wuxuu yidhi dadow talaanni weydiiyey buu yidhi waa maxay talaadna weydiisaa lagu yidho wuxuu yidhi wankaygaa inuu horsa socdona waa rabaa cadkiisana waa rabaa ee ka tala bixiya buu yidhi dee ma isqabataa yaa dee waa maya dee waxa weeyaan haddaad wankaaga aad doonaysa inuu ku horsa socdo dee waad hamuumi markaa hili ma helaysa haddaad laakiin aad doonaysid inaad hilib cuntid dee wankaaga waad seegi khalaas laakiin maanta hilib waad ka dhergi innaguna maanta waxaan rabnaa maanta in dalkeennan dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba ay noo wada hagaagaan oo dadku masaajidda camiraan oo dadku maaragtaan wanaagga ka shaqeeyaan oo fisqiga iyo fujuurka iyo zinada iyo fisqigu naga yaraado oo shurbal khamriga meel walba maanta lagu cabbaayo fasaadkaas waa laga shaqaynayaa mujtamac dhan baa ka shaqaynaya sharka oo ka shaqaynaye haddaan innagu khayrka ka shaqayno waxaasoo dhan waa iska yaraanayaan laakiin khayrka waa in la beero nin baa jamaacad waddankeenna aan ka dirno ilaahay darti u socota ayaa baabuur bay raaceen kirishbaygii bay la hadleen ninkii shooferkii gaadhigii waday baa yidhi war anu waan tukadaaye kan kirishbaygaa maad arkaysaan waa gaale kan kaxeeya buuhi islaamiya yani waa gaal waxay uga jeedaan wuxuu uga jeedaa yani maba tukadaba weyaa kaa yaray marxaba ninkii kirishbayga ahaa bay la hadleen wuxuu yidhi war waaban daalayo 3 cisho anaa bayna raacaya buuhi waa runtii ninkaasoo salaad ma tukado arkaan alislaam ma aqaano arkaan aliimaan ma aqaano agoon baan ahay 12 jir baan ku bilaabay kirishbaynimada waxaan diin ka aqaana ma jirtee waa runtii haddaan sidaa ku dhinta anaaba halis ku jira waana raacayaa buuhi waa qiso dhacday jamaacadadeennan aan dirayna qisadaas ayaa la kulantay 3 cishuu raacay noloshiisii baa isbedeshay 40 buu ka dhigtay ninkii gaadhiga u waday buu la hadlo wuxuu yidhi war lacagtayda ii soo dir buu yidhi hee aadii haysa maxaa dhacay ma hadhaya buuhi ma hadhaya 4 bilood baan raacaya buuhi jamacaddaas uu raacay markaskii bay ku soo cesheen wuxuu yidhi anigu qur-aanka ha laygu daro madaarista qur-aanka waa soomaaliya waxay jamacaddu dhex socdeen markaas markaskii baa la geeyey waa laga reebo madaaristii xifdulqur'aankii baa lagu daray 3 sano qur-aanka ku xifdiyey 8 sano cilmigii dhigtay maanta ninkii magaalo dhan buu ka yahay imaam khatiib
مدرس مدرسة أبوها يستوى شيخ القرية مرة اللي مركز جماعات وتما دوس كوي حلو إذا بلقوله وحنا هلك يقصوا قبتين بانوجا هيبي هلك يقصوا صارين بانوجا ورهدان ومدة دحس عنو أو خيارتي الناس أو ضياشي الناس اللي يرد الناس عند ذلك الدين تقعمها سوق قبسنا الله يدرت أبحنا إنك نوان فائدة سنة وبدر وينك فائدة سنة إن شاء الله هذا يا نيون يدي بلك نيون وقعد تاج ما شاء الله جبوتي أسكت قانا دعوده لكن بحتاج أنا قدرة وضيبا وعد يجي ناير ومعايه بحتاج أو ما نقد يسانا ندبج مع الله بحوم برقاس لقيت محد كسوفي وحولي وحنو راعي هاي هكا حرام معناها مرأة اللي مركي المسكيت كحديثان بوحي كسوق قبل إلى يا إلهي درتي نور راعي مركا وحان يصير هتلادي ونيو بريقا وانيجي نراعي هذا ريال وسكي داي مركا وحان الراعي هيد من هكا حرام لكن والله هذا أنا بهري بل إن شاء الله كون جيجي نيسا صوت ترتيبية إن شاء الله ووضع بحينا إن شاء الله قلبت خميستينا مركز كقاليه وكسو قيب قال إن شاء الله دنبيقنا الله هداف دنبيقا والدينتين الله هداف دينت الله إنه معاني مر الكينا الله شافي موتات كينا الله ونحرست أمني إيمانك الله إنه زيادي أمني إيمانك الله إنه زيادي حنون نضع للشيء يانا الله إنه قال dadkii ku dhintay Allah naxariisto dadku xanuunka hayana Allah ka kiciyo dadkunan helina dabeelaha Allah inaga raaciyo istaqbilu bi amwajil balaa'i biddu'a nabi gurik balaayooyinka dabeeluhu ay wadaan bu nabi gurik du'a kala hortaga daawo mardaakum bis sadaqa kiina inaga bukoodana bu nabi gurik sadaqada ku daweeyay marka du'aan haysana sadaqad baan haysana insha Allah dhahada dabeelaha Allah inaga raaciyo amni iimaankan Allah inoo ziyaadiyo dalkeenana amniga Allah inoo adkeeyo مسلمين تملي جوغان موافقين من من الله سي دولتنا وحي دينتا iyo dalka iyo dadka udana Allah garansiyo Allahna ku caawiyo Allahna ku kaalmeeyo dhalinyaradana wiilal iyo gabdhaha Allah inoo hadeeyo isma hadeyn kara Allah inoo hadeeyo Allah inoo hadeeyo khaatimada Allah inoo hagaajiyo naarta Allah inaga xoreeyo bishaar rabada kuwa naarta laga xoreeyo Allah inagu daro innaki waalidiinteeni waalidiintoodi xaq iyo xuquuq iyo xurmo wixii nagu leeyahay ilaa nabi maxamed ilaa nabi aadan Allah u naxariisto نارتنا الله كحريو إهلدنا الله نارتنا نقود حريو صلى الله على سيدنا بشابرك إيسان إنك عافمات هينا ونبضينا هينا إلها نسو قارسية بانكم هذينينا وأين نعمة داس قلبك إنكو ويناتو هذا بلد آمن جوجو وطن كاجي آمن وياهي جر كاجينا وعافمات قبو إله جل وعلا بشر رمضان كسو قارسيي وين أدوكم هالنقطة دد بدن باكل هرين الله صومي لكن ما أنت أدوية ما جوجانا وكين انتقالين dad badan baa kal hore iyagoo caafimaad qabo Ramadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaan nicmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa le wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ba ilaahay yiri damacdan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan ba ilaahay yiri runtiina waa bil aad u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo ma aragtaan bil Ramadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadaya wanabigeenu alayhi salatu wasalaam xadiis wakiilaha maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yiri waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khaslada koobaad buu nabigu yiri abuna aadam alayhi salaam maalin jumca ayaa nabi aadan la abuuray maalin jumca ayaa jannadana la geliyay maalin jumca ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxa ku jirta buu nabigu yiri saacatul ijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo
maalinta jumcadana waxa uu nabigu yiri saacada qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii Ramadaan iyo jamca waa nicam weyn weeyaan ilaahayna nagu mahadino weeyaan habeenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqi alkhayr aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dambi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoreynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqi alkhayr aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo quraanka akhriskiisa soo qaabil oo kasratul khayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helayo soo jeeso buu leeyahay malagaasi soo qaabil wa yaa baaqi sharri aqsir kii dambiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayo bishani bishii ilaahay la caasinaya dambiga la laaqanaya ma ahina ka joogso buu leeyahay ka gaabso waa bisha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yiri hadii Ramadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fi riwaayatin albaabada rahmada ayaa la furaa malaa'ik albaabada naarahana waa la xidhaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha kaliya ilaahay jalla wa ala quraanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha maaragtaane la yiri waa bisha quraankuna uu soo degay waa bisha kaliya ee nabigeenu uu yiri habeen kasta oo bisha Ramadaan kamida buu nabigu waxa uu ilaahay leeyahay adooma uu naarta ka xoreeyo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeega bisha Ramadaan fadliga ay leedahay waa bisha kaliya ee nabigu uu yiri maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee quraanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadr tobanka damana Allah ina gaarsiiyay waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلى حين واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونا وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتنا أفرين وحا أوليه دعا الله أقبله ومرك عداد ويسير دعيسو هذا فرق وديار قروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إلهي وشيكو صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهواتك النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا حنونا دختردو أي دوين كريوايان أي بشر رمضان أي دويسا بل دخترada ay waraysta oo dhahala bisheebaad ugu shaqeeyirtihiin waxay ku oranayaan bisha Ramadaan baan ugu shaqeeyirnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado uma aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan bishii caafimaadka waa bishii Ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhawaanayay وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليهي مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليهي دنبيغيسي هورنا waa loo dhaafaya man saama ramadaan bisha ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday
احتسابنا ومحي أجرك يا ثوابكنا إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا يا إنه إلهي كأبال مريو دنبي سي هراء أردن والله دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لك بشهر رمضان صلاة التراويح دا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام isagoo ilaahay ku kalsoono iimaan qaba واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر إنه كسي عبادة أساقنا دنبقي هوري وقد عايو دنبا لقد عفاب النبي عليه الصلاة والسلام وابشا النبي إنه يدي عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب النبي تمر هدي تمر وواينا بيها عادها كو أفرب رسولك يدي فالشريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته أغو تمرتا محو النبي يقول تمرتا هو الرئيسي وحال عنتد إلى هاي دولك أو كسو صار أردن مذ والب في تاميغا كجرتا أيا تمرتا أردن إلى هاي كو أبو ريبا الليل هيلبك في تاميغا كجرة تمرتا والغا هلايا عانها في تاميغا كجرة تمرتا والغا هلايا بريسك في تاميغا كجرة تمرتا والغا هلايا وحلي وحا نباتات يا خضروات يا ماركتان نعم إلهي بن آذن كأوصي عنيان مد والبا قارهان في تاميغا سيقارة يد اللوغو أبوري أيا إلهي انتو سو جمعيبا إلهي تمرتا ينوصو دحقلي تمرتو ونعمة المسلمين تا إلهي خاصك وقدقي وانا الذاتي المسلمين تو أي دين تعالم قدن كو قارسيين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين markay risaalada muxamadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaarsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaad taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay oran jireen aqalka timir aynan oolina faqriba aqalka yaala markaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nabigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nabigu yidhi oo macdada jirhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadayaa caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur-aanku soo degay weeyaan nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bisha ramadaan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayaa akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bisha maalinteedana aan wakhtigeena aan buuxinno on cibaadada iyo salaada iyo quraanka iyo dhikriga iyo taacada ilaahay iyo mudarasata ilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaat al-layl iyo munaajaad iyo salaat tarawih inaan waqtigeena ku buuxinaa laynaga doonaya laba meelood ba shaydaanka galabay culimadu yiraahdeen waqtiga marana shaydaanka ayaa daga aqalka marana shaydaanka ayaa daga marka qofka muslimka la dooni maayo waqtigiisa inuu ka dhigo firaaq bal firaaqa waqtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaama ay tahay bisha qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaama nabigeenu calayhi salaatu wasalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha ramadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aad akhridaa si bisha ramadaan qur-aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bisha ramadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer Asmaa bin Affan radiyallahu anhu ayaa oran jiray haddii quluubtiinu taahir ay noqon lahayna qur-aanka akhriskiisa kama daasheen buu oran jiray qur-aanka akhriskiisa kama daasheen lidaalika waxa salaf salih culimadu ay sheegaan saxaabada ma hayna dadkii ka dambeeyay hatta taabiciintii taabicu taabiciin
ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayo 60 jeer inaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta waliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunka yar ee adduunka lagu sheegay maanta dadka oo dhan ka cabaadsiiyay ka qaylisiiyay labadii isku timaadaba xanuunka bay ka sheekaynaysaa maanta yaa leyd sida xanuunka aanu hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oo qur-aanka u akhrisan lahayn oo istighfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dhakaranii fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeyahay keligay baan xasuusan addoonka jamci ku dhex xasuustana jamaca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo ku fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamkii ilaahay waa mawcidadii ilaahay oo caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa haddaad doonto ilaahay inuu adiga kula hadlana qur-aankiisa kala furo qur-aanka ilaahay akhriso saxaabada radiyallahu canhum iska daa masaajidka dhexdeedee meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhegaysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacadda qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxau nabigeennu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim raximahullah rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaabuu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan balii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaabuu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatul kubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam fadakara addukhaan والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بالنبي يري عليه الصلاة والسلام وعو رسول كأنه يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركب 10 علامات مركب النبي شاقيق samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fi nas alquran fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhsha an-nas hadha 'adabun alim waxa uu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay waxa kaloo nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taalo illa dajaal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa وشر غائب ينتظر أي النبي يقول فالدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر دجال بالنبي والشيئين إيمانا يا آخر الزمان ما أنت الزمن كان ما أنت كورما صحابة رسول رضوان الله عليهم أجمعين
أحاديث الدجال كصابسن مركو نبي وقور رمايو وحي يدادن وحن موذي جرني سدا وهذا النبي قلوب هذا أساميني درتنا قدام بيسين الدجال كجرا نملين أصحابته يدادن وأكوني أفر بقولو سنة كهر ويان وحس ونبي كور رمايو إنك أنا ما تزمك أنا كور رما كورونا فيروس ما مات عالم كنا وريريو هذا الحياة حنون أمر إلهي كالصعدة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودا لابد يسكت ما دمانت هكذا كيسانيسا صحابتنا كوني أفر بغولو سنة كهر وحي كشي كيسانين دجال إنو صو صعدو ماركو النبي قد دجال وغشي كينا ينبي دادين وحنوم ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي أقبان درتنا قدام بيس الدجال إنو كجرا نوم ملينيني أصحابتو دادين دجال بنبي وشيغينو أدون كودان مرايو جنة النار وحويك بوتا وعو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفني قفكي السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا داد علي دادكي السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا مرقابو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام طبانك آيات ذا سورة الكهف نكا آخر استمالينتي إلى هاي في الندى دجال وكبت بادي أبو رسولكو يدي وفي رواية توكد ضمن النبي قوى شيء وحكلوا النبي انه شيء عليه الصلاة والسلام دجال انه أدون كودا وصامين وقليا مكية مدينة مقليا أبو رسولك يدي وفي رواية حديث وعي شيء سأفر ملوت دجال مقلايو جبل الطور بورتي نبي موسى عليه السلام لوقو وحيودي إلهي نبي موسى وكل مناجود مقلا يا دجال مكنا مقلايو مدينة مقلايو قدسنا مقلايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال مقلايو لكن شريرين ضدك الشركة بدل منافقين تا مكية مدينة دحدة إذا كله من يكونل أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يدي على مدى صدحات النبي يقول وأدابت دولك كصوب حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخرة ذا كصوب حيسا يدنا الدية ودم بين مريسا قف كسو الدية كويا الله النبي يقول وإشابدين وحقف والبوي هين وكوكر من دون تابو رسولك يدي مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كان كافر بيكو شابدين وعكلوا نبي يقول شيء إنه إيمان يا نبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقدون أبو رسولك يري حكما نسقو حاكما شريعة الإسلام كو أدوية كو حكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفع دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلين وجبين دونا عدالة الإسلام كو أدوية دونا كو حكومي دونا أبو رسولك يري وعاكلوا نبي يقول شيء يا جوج وماجوج يكن الله فوري دون ابو رسولك يري والله با امدودو كو ابتر صدا يافث بن النوح بي كو ابتر سنيا امدي با افر بقولو كن مid iyaka kamida madinta baa la yiri ilaa uu arko kun wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaaro dagaalka galay mooyaane ummadana adduunyada waa lagu soo furi doonaa hatta idha futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun waa ka quraanka ilaahay noogu sheegay waxa kale uu nabigu sheegay ash-shamsu nabigu calaamada lixaad waxa kamida cadceeda oo ka soo noqota meesha ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin hadduu toobadkeena buu nabigu toobada ilaahay jalla wa ala waa ka aqbala laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jirka oo dhan ee halka hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yiraahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonaya toobada laga aqbali maayo nacam hadday cidaadu galbeed ka soo noqotana albaabka toobada waa xidhmay buu rasuulku yiri saddex meelood adduunyada ku taalana buu nabigu dhulka ayaa gu'i doona خصف في المشرق دولك اعدادو اي كسو بخدو ودنا دن يا امده دن با لا واي دونا علامه تضباد واتاس علامه سيديداد بو نبي غو خصف في المغرب قلبيتك ادويدنا ودنا دن يا امده دن با دولك لا غوي دونا علامه سغالاد بو نبي غو خصف في جزيره العرب دحديدنا دول يا امده دن با لا واي دونا
علامة التوبنات بالنبي قولي ولا ليال والنار كصوبحي سعدن مقالة عدن قنت يدي كصوبحي دونتا بنك قيامة تكسو الرين دونتا برسولك يدي طبنك علامة ضد بكسو الرين بالنبي قولي سعادة قيامة طبنك علامة ضد ما انت وحكا شاكين ويريهن حنون بيك شاكينا يعني حنون قاجي كشاكينا يعني أبار بيك شاكينا يعني وحاسا ما أنت أدوية اللوين ما أنت ليشاني مركا وبالبركة يسن يعني هذا الكأدوية اسكوب بدين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما هو حلق الصوم يبادي بيكليه waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anayni xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysano waa bil ducada ilaahay aqbalayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeena iyo dalkeena iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta Allah ka ilaaliyo aamin dhahada dadka dhibta soo gaadhina Allah ka qaado dadkii ku dhintayna Allah u naxariisto dadka uu hayana Allah caafimaad sariic Allah siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة برسولك يري إلهي بريا أبو نبي قول يحي وباهدين إلهي أشيكتا إنكو يقين سن وكوكل سن إلهي ندعا دين أقبل أيو استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرداكم بالصدقة تبا النبوي إمام قيم ابن قيم رحمه الله حديثك أيوكو الشيقي بلايوينك الضبيله أي وضان بو نبي قول يحي دعاكو قابل دعاء ويوي عيسى بلايدا حوله إننا وحدكو إلى الإسلام بو نبي قول يحي الزكاة هذا زكاة ديبتدو ضدك مستحقين تو الله قلت لك لي aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay ka dayici maayo ilaahay ba ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nabigu leeyahay sadaqada ku daweeya wuxuu leeyahay hay'adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nabi maxamedna waxa uu leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkayna galay maanta hay'adda caafimaadka adduunku waxayna tiri xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nabi maxamed waxa uu leeyahay habatu sawda dawaa'un min kulli daa habasuuda buu nabigu yiri xanuun kasto adduunyada ka jira ayada uu dawaa buu nabigu leeyahay illa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajarrub waa cilmiga tajarrubka cilmiga nabi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwahyi weeyaan وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال ذو حين لا ذا حنون عند والله حين بعد يدك قاري اسكيل عليا إلى حين قرآنك وحو كل يحي فيه شفاء للناس وعسلك ملبك دوا إلى هي قلي خبرك دتك أي شيء يان مؤمن كأنه قلم معها خبرك إلهي خبرك النبي يقول شيئا قلبك هكو قلم dhibaato kasto adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay rasuulka annaka noo sheegay laakiin dadku warka uu galay Allah inaga dhigo
بشنوا بالبركة مركا عن دعيسن إن شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبب النزول كآية أي كسر دكتور محي هيد لأن أعرابي ورير بادية أي النبي جينا ويمد عليه الصلاة والسلام وحول يا رسول الله إله حقي سأد نوجو يريسا ما من نجد ديرو مركان برينا ما نقيلنا مسوا من نودو والله ملاجونا يهوس بنو حقوش شجنا بالنوشك وأمس النبي جينا عليه الصلاة والسلام لأن مركز آيات القرآن كسر دكتور إلهي ولي هاي هدي أنا قاعد دوم هاي كاوي ديام وعادو شاكتاين أنا نقول أدون كانوا دوحي كإبريانا بريدي سواء أجيب بإلهي يعني قال لكن هاي أجيبان لا بشر دي بقى لقوا حين دعاء إن لقى أقبله إمسى شرطي لا بشر فليستجيبوا لي إلهي أجيب وأمرك إلهي إلالي وشريعة إلالي ودينة إلالي وطاعة إلالي ووحي معروف إلهي كفر لك علي وحي منكر شريعة وأي كربتنا كربتهم وليؤمنوا بإلهي الرمي قضاء والقدر وحي إلهي كو حكمين كرة للنغو وحي إلهي كو قدرين كو قنع labadaasi haday qalbigeena ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ay saameyn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira quraanka si fiican u dhageyso wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wath-thamarat maxa ku xiga wa bashir as-sabirin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxul faraj waa sabir weeyaan adoonku mukhayyar maahina waa musayyir أدونك وأحمد دوران كرا إسقو وحي لهاي كو قدر عديك وين تكون قناعة لذلك النبي جينا عليه الصلاة والسلام وحي ونوشة ملايكة مركي إلمها يراي نفتك قبطان أيو إلهي ملايكة كوير هذا أدونك يجي إلمه يصير روحنا مكسو قابتين ها بيرادان أدونك يجي مريه قلبي سما سوقبتين ها وسوقبني مركز إلهي هذا فماذا قال عبدي أدون كيجي مركز الميسي روح ذاك سوقبتين محيري بلي شيء مركز هذا حمدك واسترجع حمد ما معنى الحمد لله على كل حال بيولي إنا لله وإنا إليه راجعون بيولي مركز إلهي هذا ما دام أدون كيجي مركز الميسي نفتح كسوقبتين وأنيجي إما هالنقي وإسقون حقيقة أصون نقضي ابن لعبدي بيتا في الجنة أقل جنة وقدسة أقل كان واحد وقم ما قعدرتان قريقي مهنقة مؤمنكم برواغدنا وكما عاشا مصيبة هذا يكون عدنا وكما عاشا وقفك مؤمنك لكن فإلهي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا بشهر رمضان الله ينقى أقبله يندد ولا عليه ندي بدأ تاجن ومساجدكم ما شاء الله آد بالأب وحيي إن شاء الله خطبة نسكب لابن دونا الله ننقوها نفعه وصلى الله